بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلتي وعنا وناسن دمان وضع الصوماليات قوب كستا iyo goor kasta joogtaan waa barnaamijkeena iftiiminta xaqiiqooyinka maanta isku dul taagayno qodobo dhowra qodobkeena koobaad waxaan isku dul taagaynaa gudoomiye shuute iyo taliyaha ciidanka militariga Odawa. qodobkeena labaad waxaan kaga hadlaynaa isbaaraystihii weynaa ee wabiga waxa weeye marka iyo baraawe dadka ka iibin jiray ee waxa weeye argixisada number 1 ka u ahaa oo isaguna maanta furto qabyaalad cad dibadda ula soo baxay isagana waa isdul taagayna gudoomiye shuute iyo taliyaha ciidanka militariga waa in maxkamad la soo taago. waxaad ogtiin aadan yabaal dagaal baa ka dhacay halka al-shabaab iyo dawladda isku aragtay. gudoomiye shuute iyo taliyaha militariga Odawa ayadoo furintii lagu jiro oo ay ragii dagaalamayaan waxaad ogtiin reerka mursada la yiraahdo ciidan gaadaya 700 oo nin iyo taliyahoodii ayaa wax yar ka baxsadeen wax yar. taliyihii ciidanka watay ee loola jiray Tuuryare Ismaaciil Hebelka Tuuryare Allah yarxama telegram ku yaala isagoo wax weeye al-shabaab ku intay qabteen aakhiro u direen ciidankii oo furinta ku jira oo dagaalamaya ayaa taliyahoodii baxsaday. moqokari bay ka xirteen xawaadle macawisleydii xawaadle ayay u galeen moqokari bay joogaan. ciidanka meesha lagu laayay ee gam lagaga dhigay eegay ee aadan yabaal difaacayay waa ciidankii Soomaaliyeed ee al-shabaab la dagaalamayay ee halka isku farsaareen. taliyihii ciidanka militariguna saacad kadib moqokari buu joogay isaga iyo shuute marka mid baan rabaa inaan weydiiyo bal Odawa isagu hay dambeeye shuute wuxuu xukumay niman ciidan ah oo leeyahay furin bay ka soo baxeen ayuu wuxuu ku xukumay inay dambiilayaal yihiin dagaalkii ka soo carareen bal iska daaye niman culimo ah baa waxay u fatwoonayeen ninkii furinta ka soo baxa oo waxa weeye nimanka ka soo carara inuu iyaga la mid yahay oo la toogto. shuute wuxuu xukumay oo maxkamadiisa la soo taagay rag ciidan ah oo dhalinyaro ah oo askar ah oo leeyahay furintay ka soo carareen. shuute marka waxaan rabnaa maanta shuutow waa in adigana maxkamad lagu soo taagaa maanta. waa in maxkamadii aad ku xukuntay dhalinyarada Soomaaliyeed ciidanka aan hub haysan oo waxa weeye nafaqo aan haysan oo cunto wanaagsan aan haysan oo difaac fiican aan haysan oo ragga ahaa ee waxa weeye lagu soo tiiriyo tacabeelay ee la soo tababaray ee waxa weeye shaam cabalaha ee sulug laha iyagoo ka hadlaya gacanka ka hadlayo la warna soo gaara war noo imaada war waa dhiig baxayna war rasaasti baa naga dhamaatay war waxa weeye war square baa nala ka haya war rasaasti waa naga dhamaatay war irbadii dhiig joojinta ma haysano war ciidanka soo gaara ayagoo leeyahay raadaar gacanka lagu damiyay inta gacankii la kala dhigay la iska dhageysanayay eegay ee meesha ku baxay ragii ka soo firxaday waa adigii maxkamadda markii lagu keenay waa adigii xukumay adeer maanta waa inaad maxkamadda lagu geeyaa way. shuuto wax badan baad dad xukuntay wax badan baad qof miskiina oo aan dambi lahayn eegay waxa weeye dul toogashaa ku xukuntay. wax badan baa qof dhalinyaro ah oo lafiisa u soo baxsaday oo mission loo dhigay oo soo cararay oo waxa weeye $200 iyo $150 ee waxa weeye uu yani mushaharka u helayo mooyaane wax kale aan waxa weeye u dheerayn dhaaxaad xukuntay. shuutow adiga iyo Odawa waa in maxkamadda sare leedin geeyaa. maxkamadda ciidanka waa in leedin saaraa meel taliyihii dhammaa ee ciidanka watay waa taliyihii guud ee ciidanka militariga Soomaaliya baan boqokari u cararay deg laba cagood buu ku baxay. gudoomiye maxkamadda militariga Mr. Shuute eegay ayaa baxsaday halka waxa ku haray Tuuryare ayaa halka ku haray wax ka baxayna waa yaray ciidankii mursada ee halka joogay goor habeen ahayn maalin ahayn baa looga sibtay meel taliyihii militarigu ka cararay iyo kii maxkamaddu ka cararay. Shuute waa gudoomiyaha maxkamadda militariga sharciga isaga qaban waayay ee dadka masaakiinta qabanaya horta meesha ku qoraya baa la iska rabaa. ciidankan yaa dhabar jabiyay yaa balaayadan u geystay
ايجي وحسن يو بوب قرن كوحدة بوب قرن يا حسن وي marka shuutow qodobka waxaan ku soo gabagabaynayaa waa inaad maxkamaddu soo taago lama arag oo lama maqal oo lagama sheekeyn meel taliyihii dhamaa ee ciidanka militarigu eegay intuu shaarka dhinaca qabsaday labada cagood wax ka dayay oo cagaha faytay eegay horta baxsadka iyo naf jeclaysigu naftu qiimaha ay leedahay horta shuutow maanta ma ogaatay naftu qiimaha ay leedahay dhalinyaradii soo cararaysay ee naftooda la soo baxsatay ee bilaa difaaca ahayd ee bilaa rasaasta ahayd ee bilaa gurmadka ahayd ee bilaa dhigjoojinta ahayd ee bilaa nafaqada ahayd ee bilaa raashinka ahayd ee bilaa nolosha ahayd ee mishinka loo dhigay markay soo baxsadeen waadigii xukumayay naftu inay macaan tahay maanta ma ogaatay waa in maxkamaddu soo taagaa odawaayo haddaad damiir leedahay casilniyo maxkamaddana isgey inta la iska cararo eegay oo moqokori la tago macawisley baa maanta waxa weeye naf la biday qodobkeena labaad odagan mooryaanka ahaan jiray tuugga ahaan jiray isbaarada adduunka kama dhicin adduunyada ilaahayay lama arag oo lama maqal oo lagama sheekayn webi ilaahay leeyahay nin miisayo webi ilaahay leeyahay eegay webigaa ilaahay waa badda ilaahay adigoo yidhaahda qofkii ku qubaystaba lacag baan ka qaadaya baraawe iyo marka badda iyo webiga oo miisaami jiray ninkii baraawe dadka webiga u miisaami jiray baa maanta wuxuu ka hadlayaa waxa weeye wuxuu leeyahay dowladda farmaajo argagixisay ahayd farmaajo argagixisu ahaa xasan sheekh argagixisa maha boob qaranna looma bahan waa yuusuf indhacadde ninka xaq iyo xaq darro inooga sheekaynaya waa yuusuf indhacadde ninka inooga sheekaynaya inaan isbaaran la dhigan waa ninkii webiga baraawe dadka biyaha ka iibin jiray dowladdii farmaajo waxaan kula dirinayay buu yidhi argagixisay ahayd wax kaleba kuma haysan waxaan boob qaran iyo u sameeyay wuxuu ku jiray qoladii berigii dee waatuu daljirka dahsoon yimi iyo yidhi dalka la xukumay ma aryaa farmaajo u soo bax dalkan waa lasbaraha dhayaha waatii lagu dhuftay kooxdii kabahooda ka cararay buu ku jiray daljirka weliba isaga si gaara loo eriyadayba wuxuu yidhi farmaajo wuxuu ahaa argagixiso dowladdii farmaajo argagixis ahayd sidaa darteed baan boob qaran u samayn haye dowladdanna ka warran baa liyi wuxuu dowladdan qof argagixisa aan ku ogahay ma jirto 74 goobood oo adanya baa lagu dambeysay weli miyaad maqasheen dowladdii farmaajo taliyihii ciidanka militariga baa cararay weli miyaad maqasheen dowladdii farmaajo taliyihii maxkamadda shuute baa diriqi ku baxsaday weli xilligii farmaajo miyaad maqasheen saraakiil caan ah sida sunnuug iyo shaah macabe iyo saraakiishii qiimaha badnayd ee lasoo tababarayo maalin walba layska birbiranayay miyaad maqasheen miyay dhacday ilan gari allay leedahay eegay mase waxaad odhan doontaan dowladdii farmaajo dagaal lama gelin al-shabaab oo iskamay hor iman taa haddaad tirahdna been baad sheegtay laakiin farmaajo nin aad u caqli badan buu ahaa eegay oo wax kala shaandheeya oo wax kala reeba oo marxaladda lagu jiro iyo ciidanka iyo jawga siduu yahay nin wax fahansan buu ahaa laakiin injo ma ahayn waa isbaaraystihii weynaa baa maanta wuxuu leeyahay nooga sheekaynaya marka al-shabaab ciday tahay argagixisa intay tahay qabyaaladii qofa isbaaradii qofa iimaanliidii qofa ehlunaarnimadii qofa wey waa yuusuf indhacde reer baraawe waa yaqaanaan commentiga soo wada gelayaan anigu ilaahay baan ka baqayaa buu wax aan ku ogahay ma jirto buu dowladdan oo argagixisa maanta haddii la yiraahdo badbaado qaran baa la samaynayaa anigu sidaan qabo waa maalin jamca ilaahay baan ka baqayaa waa yuusuf indhacde ninka ilaahay ka baqayaa wuxuu yidhi waa balaayo qaran weeye maanta inaan badbaado qaran samayno waa balaayo qaran buu qabyaaladiiste isbaariiste xoolo xaaraana isaga iyo ubadkiisaba ku soo koriyey dadka biyaha ka iibin jiray webiga ilaahay bal tog webi ilaahay jeexay ninka qofkii saa joog u darabaali 50 kun buu ka qaadi jiray oo waagaas 50 kun oo waagaas buu ka qaadi jiray bali dawaal ma goorma waa 20 sano ka hor 50 kun maxay ahayd xoolo dameer gooyaba ahayd 50 kun xoolo dameer gooyaba ahayd 20 sano ka hor
jirkaan ba qofku hadduu saa u daro baa konton kun baa ku saaran ninkaasa maanta alla ka cabsi nooga sheekaynaya oo qabyaalad nooga war wuxuu dowladdan maanta badbaado qaran looma samayn karo hadday u samayno waa balaayo qaran kan lama yaabani laakiin shuute iyo odawaayow maxkamadda leedinka sugaya weliba shuutow wax badan baa dad masaakiina xukuntay oo tirsaa u soo carartay si al-shabaab uga carartay al-shabaab say uga carartay haye horta nafta ay qabatay naftu waa macaan tahay haddii roogu fooda isdaro adeer waxa weeye waa la kala caraf qaadayaa oo nafta ay qabatay maya 20 sano xariga dil toogashaaba qaar uu xukumay shuutow maxkamadda ka sugeynaa haddii kale maanta laga bilaabo adoo qof bin aadan xukumaya kuma arki karna niyow odawa iyo shuute inaad casishaan maxkamadda iskashan baa leedinka sugaya war khayr iyo baraka dir jannah barnaamijka si shargaraya barnaamijka fitimiinta xaqiiqooyinka la yiraahdo cidna uma naagayo xaqu waa xaq baadilkuna waa baadil warsan nabadino salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh